gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee gobolka Saaxil Marwarooda Axmed Yaasiin oo maanta warbaahinta la hadlaysay ayaa waxa ay ka hadashay dhaliishayna xariga dhalinyarada ururka Muwaafaqo oo ay qaar ka mid ku xidhan yihiin saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa muddo 2 toddobaad waxaana dhalinyartan xarigoodan uu salka ku hayaa amaba lala xiriirinaya kadib markii ay ka hadleen isla markaasina falanqeeyeen wareejinta dekedda magaalada Berbera waxaana taa bedelkeedu noqday in dhalinyartan goor habeenimo ah guryahooda laga qabqabto qaarna suuqa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee gobolka Saaxil Marwarooda Axmed Yaasiin ayaa cambaareysay xarigan isla markaasina naqdiday horta dadka muslimiinta iyo ummadda muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay sooman Ramadaan Kariim maanta ma yahay maalin la hadlo ama cid la cambaareeyo ama cid la hadlo way ka firsan weyday waayo xukuumadii baad moodaa xagoodii inaan shaydaanka la xidhxidhay laga xidhxidhinba xageedii inaan laga xidhxidhin baad moodaa taasaan ugu kaliftay inaan wax niraahno waxa aan leenahay maanta waxa la keenay maxkamadda inamadii aqoon-yahanada ahaa ee la xidhxidhay ee ururka Muwaafaqo waxa lagu daahfuray Berbera waxa joogtay xukuumadda oo dhan baa joogtay golaha deegaanka ee Berbera ayaa joogay ururka waxay u ballan qaadeen inay xoog iyo xoolo iyo taloba taageeri doonaan ururkii markii aanu halka ku ogeyn ee anagu aan islahayn ururkaasi Muwaafaqo si fiican baa dawladdu u qaabishayo talo maxaa isugu jira ayaa haddana waxa dhacday in maxay heetolay ururkaasi ay shir dambe qabsadeen shirka dambe ay qabsadeen waxa ka soo baxay in rayigooda ku cabireen oo ay yiraahdeen waxaan maxay heetolay ka hadleen agreementkii dekedda iyo waxyaalo ku saabsan mada waa la bahdilay si aan ahayn maxay heetolay loo dul qaadan karo ama aanay mutaysan ayaa loo galay meesha shishe ee laga dilayana waa la isweydiinayaa inkastoo dadka qaar fahmayaan waxaan leenahay qofka bini'aadamka rayigiisa uu cabir kara waa rag aqoon-yahanna ma aha dad la oranayo wax noo dhaha iyo sidan wixii ay iyagu ka helaan aqligooda ayay ka hadleen oo arkeen sax aanay noqon doonaan qaar maanta halka hore uga sii mara waayo waa la yaqaanayo mar haddii ay xukuumadda ku xidho oo ay waxay ka dhex baaraysaa waxa weyn dantii ummadda iyo nasteexi ummadda ayay ka baqeen inay ku soo jiraan namadaasoo dadkuna aad bay indhahoodu u hayaan waxaana leenahay halkii uu fay gaarsiin doonaan wax haddii ay ka dayn weydaan idinku geesta kale gudoomiye Rood Axmed Yaasiin oo hadalkeeda sii wadata ayaa ka hadashay shiray sheegtay in lagu qabanayo deegaanka Baxara Saafka oo ka tirsan degmada Laasgeel anigoon hadalka ku soo dheeraaneen Ramadaanta aawadeed waxaan leenahay shirarka la sheegayay shirka Baxara Saafka iyo waxyaalaha ay dawladdu ka bootantay Baxara Saafka ummad baa degto waa la yaqaan waa deegaan ummad leedahay waana la tashan karaa maxay heetolay shir ay leedahay reer Saaxil leeyihiin dawladdu wax lagu yeelayna ma jirto kii hore daniyo ducana iskuulada aragteen baa lagu dhisay kana wuxuu baa ka soo bixi lahaa reeraha kaleba shirar bay qabsanayaan meel walba shirar baa ka socda bariya galbeedba waxa ku shirarka Saaxil lagu qabanayo dawladdu saska uga qabto ayadaa og laakiin waxaan leenahay haddii ay sida uga baqayso reer Saaxil dawladdu kama baqaysan leenahay marka hore wata oo dadkiina wata idinka xukuumadda wax la idin dhiibayo oo xaqooda siiyo oo mariya ama kala tasada wixii ay xaq u leeyihiin Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera.